بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرسيني سدحاد فهم كصونك إلهي سبحانه وتعالى وحر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون dadkii muuminiinta inuu soom alla ku farad yeelay buu sheegay subxaanahu jala wacala yaa ayuha aladiina aamanuu qur-aanka waxay ku timi 89 jeer bay qur-aanka ku timi yaa ayuha aladiina aamanuu marka la yidhahdo yaa ayuha aladiina aamanuu qofkii muminka waxbaa la faraya waxbaa laga celinaya soonkaasa ilaahayna ku farad yeelay markaasaa rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih qofka ramadaanta sooma rumaynuu ilaahay rumaysan yahay subxaanahu watacaala fariidadan iyo waajibkan ilaahay uu ku waajib yeelay subxaanahu watacaala iyo ajar uu ilaahay kaga doonayo subxaanahu watacaala soomkiisa uu sooman yahay uu ilaahay ajarka kaga doonaya inuu ku siiyo ifyo aakhiro qofka sidaa u sooma dembigiisii wixii tegay ilaahay waa ka dhaafaya subxaanahu watacaala maxaa la rabaa marka in maalinteennuna ay ku camiran tahay soon habeenkeennina uu ku camiran yahay cibaado iyo salaad waa qodobka la doonaya walaalayaal rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi qofka ramadaanta qiyaamuleyl isu taaga taraawiixdii iyo ama maxaanku idhahdaa keligii habeenkii tukado oo habeenkaa taraawiix habeenkaa ramadaanta cibaado isu taaga rumaynuu ilaahay rumaysan yahay cibaadadan inuu ilaahay subxaanahu watacaala sharciyeeyey oo ilaahay uu u samaynayo ajarna uu taagnida iyo qiraa'ada iyo daalka uu ilaahay kaga doonayo ajar iyo xasanaad inuu ka siiyo dembigiisa alla waa dhaafaya subxaanahu watacaala faa'iidada marka xadiidku sheegay waa maxay qofkii iimaan iyo ixtisaab isu taaga ilaahay dembigiisi waa dhaafaya subxaanahu watacaala fadligaasi waxaa lagu helayaa qofku taraawiixi dadka waxaad arkaysaa laba intay qaarkood tukadaan bay ka baxayaan qaar baa 4 tukanaya way ka baxayaan qaar baa tukanaya 6 way ka tegayaan qaar baa tukanaya 8 way ka tegayaan fadliga cadiimka ah ee nabigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leylatin xadiiska muslim soo saaray u fiirso qofka imaamka isla taaga oo salaadii la gala buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maca alimaam salaadii imaamkii la gala ilaa intuu ka dhammaysanayo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu qofkaasi u qorayaa caawa oo dhan inuu salaad u taagnaa inagu hadda maalan magaalada inaynu joogno 13 saacadood iyo 40 daqiiqa la soomaa oo waxaa la adimaa 24 daqiiqo ramadaantan hadda aynu joogno haddii la yidhi caawo dhan cibaada u taagnaabaa laguu qorayaa ajarkiisa bal hadda u fiirsan xisaabino 13 saacadood iyo 40 markaad soomanayd habeenkii waxaa soo haray 10 saacadood iyo 20 saacad baa taraawiixdii tukatay imaamkii baad la bilowday waad la dhammaysay markaad la dhammaysay habeenkii caawaha adoo caawo dhan taagnaabaa laguu qoray 9 saacadood iyo 20 ba habeenkii ka dhiman intaadan kicin adigu 1 saac kaliyaad kacdoo tukatay ilaahay agtii waxaa laguu qorayaa 10 saacadood iyo 20 oo habeenkii ka kooban yahay waqtiga iminka inuu joogno inaad xilligaa marna rukuucaysay marna sujuudaysay marna taagnayd marna qur-aan akhrinaysay ilaahay hortii subxaanahu watacaala oo salaad aad ku jirtay fadliga intaa leeg laakiin qofkii isagu laba tukaday fadligaasi ma helayo intuu laba tukaday iska baxay labadaa uu tukaday keliya ajarkeedu leeyahay waa la midkii 4 tukaday kii 6 tukaday kii 8 tukaday waayo nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam man qaama maca al-imaami xataa yansarif qofka imaamka la gala salaada oo isla taaga ilaa intuu ka baxayo oo waxa la oran karaa ishkaal baa la keeni karaa qofku wuxuu oran karaa sootan imaamiyadu isbedbedelayaan durtaba oo
laba inta imaamba intuu qayb tujiyo uu ka baxayo ilaa 3 ama 4 imaam ay isbedelayaan. jawaabteedu waxay noqonaysaa imaamyadan isbedelaya salaada ay tujinayaan waa salaad qura oo 11 rakacadooda ka soo galaana kii hore booskiisii buu istaagayaa. salaadii dhinnayd ee kii hore uu qayb soo tujiya wuu dhammaystirayaa, weli salaadii may dhammaanin. marka arrintaa waxaynu baraarujinaynaa in laga faa'iidaysto, waayo ramadaantu iyo kayrkeedba nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kama kordhin jirin 11 rakacadood. rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kaana laa yaziidu fii ramadaan walaa fii gayrihi 11 rakaca. ramadaanta iyo kayrkeedba kama kordhin jirin 11 rakacadood rasuulku calayhi salaatu wasalaam. waa laga badin karaa, lama odhanaya ma banaana. salaada habeenkii salaatu leyli mathna mathna buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi. inta aan ku joojino darsiga waa usoo noqon doonaa in sha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. astawdicukum allah.